dugsiyada Al-Irshaad School. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعلى Abdirashid iyo mar kale barnaamijkeeni Irshaad Online Educational Program ee iskuulada Irshaad Primary Schools. Classes-keenu ku guda jirnaa waa grade 4 maadadeenu waa Sceince. Waxaynu ardayay dhigan qaybta hore ee chapter 11 maantana qaybtiisii dambe ayaynu dhiganaynaa. Waxaynu ku baran doonaa how does rain forms chapterka water ahaa. waxaynu maanta baran doonaa how does rain forms. Marka intaynu classka ku guda jirno arday walba waxa laga doonayaa xiisadaynu si dhow la socdo iskuna dayo inuu u fiirsado wixii uu fahmi waayana meel ku qorto si kolkii aan isku soo noqono isku. How does rain form? How does rain form? See ayuu roobku ku samaysmaa? Sidee buu daruuruhu ku samaysmaan baa dabcan loo jeedaa. See ayuu roobku ku samaysmaa? Ardayow haddaynu su-aasha ka jawaabno dano iyo siduu u daayo iyo halka uu ku daayo dhammaan waa arrin Ilaahay maamulayo, wax iska dhacaya maaha. Laakiin culimada saynisku waxoogaa waxay isku yaradayeen inay wax ka ogaadaan sida uu u samaysmo roobku iyo sida uu u doo. Okay, marka inagu waxaynu u baranaynaa saynis ahaan, laakiin waxaynu ictiqaadsanahay ardayow samaysanka roobku inuu yahay wax Ilaahay gacanta ku hayo oo Ilaahay baa maamula. saa darteed halku ka daayo iyo siduu u samaysmayo waa arrin Ilaahay u cilmi leeyahay. Marka cilmiga saynisku inta yare uu ka sheegaya maaha wax weyn. Marka haddii ay baydmo intaynu ka sheegaynaa waa aad u kooban tahay. alla waxay ka tahay ma jirto. waxa weeye cilmiga ku tacalluqa samaysanka roobka iyo siduu u daayo halka uu ka daayo waa arrin Ilaahay oo isagu u cilmi leeyahay. When the sun marka cadeedu shine it heats up waxay kulaylisaa ardayow the water bodies earth dhulka dushooda ayay kulaylisaa. biyaha waxaa ka mid ah oceaniska biyaha badaha waaweyn ku jira, seas biyaha badaha yaryar ku jira, rivers webiyada biyaha ku jira, lakes dams wells okay and so on etc iyo wixii la mid ah. marka cadeedu marka ay shining samayso ay kulayl keento macnaha ay iftiinto waxay kulaylisaa biyaha ku jira waxa weeyaan water bodieska dhulka dushiisa laga helo. Okay, then some of the water biyihii qaar ka mid ah kadibna waxa weeye gets hot kululaanaya and evaporate oo waxa weeye uumi baxaya and evaporates oo uumi baxaya. Okay, uumi as water fiber waxa weeyaan as water fiber into the air. biyaha qayb ka mid ah kadibna inta kululaato uumi baxaysa ardayow noqonaysa uumi biyood oo hawada galaysa. This water fiber uumi biyoodkani rises up saruu kaca halka uu tagaa into the space cirka forming isagoo sameynaya clouds daruuro as it gets cooled down in the space marka uu ku qaboobo cirka dhexdiisa. Okay, marka cadeedii markay qabato biyaha dhulka dushooda yaala ee meelahaas laga helo waxa ku dhacaya biyihii inay kululaadaan. biyihii kolkay kululaadaana evaporation bay sameynayaan waa uumi baxayaan evaporates. markay uumi baxaana waxay noqonayaan water fiber uumi biyood iyagoo galaya hawada. water fiberkaas kadibna sare u kacayaan rises up iyagoo tagaya halkee in the space and forming sameynayaan clouds as it gets cooled down marka ay qaboobaan in the space. Okay, marka waxa weeyaan halka waxaanu ku aragnaa in kulaylinta biyaha dhulka dushooda ah ay keenayso in waxa weeye uumi baxaan. uumigaasina uu hawada galayo kadibna uu cirka sii galayo halkaana uu ku qaboobayo isku bedelayo daruuro. Then the winds kadibna dabaylo ayaa push these clouds towards the earth. daruuri cirka ku samaysmay dabaylaha soo riixaya xagee u soo riixaya towards the earth xagga dhulka ayuu soo riixaya. as they get heavy markay daruurihii cuslaadaan falls as a rain kadibna waxay u soo daayaan daruurihii waxa weeyaan roob ahaan bay ugu soo daayaan on the ground dhulka. some of the rain water qaar ka mid ah biyaha daba roobka ayaa gets into the rivers waxay dib u galayaan webiyada
river drains riveriskuna waxay ku shubayaan into the seas and other water bodies meelaha kale biyo ku jiraan iyo badaha ku shubayaan marka dabaysha marka daruuruhu cirka ku samaysmaan dabayl ayaa soo riixda waxay u soo riixaysaa towards the earth kadibna daruurihii waxay noqonayaan heavy oo marka ay soo dhawaadaan they get heavy way cuslaanayaan markay cuslaadaanna fall as rain waxay u soo daayaan roob ahaan on the ground dhulka dushiisa haddaba qaar ka mid a rain waterkii ardayo gets into the rivers webiyada ay ku shumayaan and the rivers drain webiyaduna waxay ku shubayaan into seas badaha and other water bodies waa cilmu cindallah waxa weeye cilmina waxa iskale ilaahay siday u samaysmayaan sidaynu horeba u sheegnay waa cilmi ilaahay la gaar yahay laakiinse culimmada saynisku aragtidooda waxay ku qiyaaseen inay sidaas daruuruhu u samaysmaan okay maanta halkaa baynu classka ku daysanaynaa insha allah waxaad ka soo jawaabi doontaan exercise-kan how does rain forms seebuu daruuruhu roobku u samaysmaa bal sharaxoo ka sheekee state some of the water bodies found on the earth waxaad sheegtaa meelo ka mida meelaha biyuhu laga helo dhulka dushiida state one factor hal shay sheeg which is responsible kaasoo mas-uulka ah for the evaporation uumibaxa of water biyaha ee biyuhu halkay ka uumibaxayaan from water bodies on the earth water bodieska on the earth dhulka dushiisa okay hal factor ama hal shay oo mas-uulka ah inay biyihii uumibaxaan oo ay ka uumibaxaan water bodieska ayaad sheegaysaa halkaas baynu insha allah aynu ku daysan maanta markaa kasoo jawaabay exercise-kana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dugsiyada al irshaad school